waxaan halkan ka sheegayaa oo dawladda u soo jeedinaya Somaliland aragtidii aan ku soo aragnay dhulkii aan maraynay ciidamadii dagaalka galay waxay ahaayeen ciidamadii labada beelood u qaramaysnaa ee ka tirsanaa ciidanka Somaliland waxaanu aragnay ciidamadii dirayskii sitaa tiknikadiina wata calaamadii qarankuna ku qorantay waxaan dawladda u soo jeedinaynaa in ciidamada qaranka ee halkaa jooga tallaabo ay ka qaadaan oo ay ku soo celiyaan xiriyahoodii si nabadgelyada loo sugo inta ciidamadaas halkaa joogaan nabadgelyadu soo xirmi doontaa way adagtay marka annagu waxaan dawladda u soo jeedinaynaa kuna dhaliilaynaa ciidamadoodii iminka 23 casho ayay maanta maraysa 23 casho ee dagaalku dhacay ciidamadaas halkaasay fadhiyeen any minute-na dagaalku u qarxi karaa meeshay doonaan bay weerari karaan waxaanu doonaynaa dawladdu aan ku dhaliilaynaa inay soo xarayso ciidamadeedii xiriyahoodii ku soo celiso ama jiida kalaba u dirto oo laga soo saaro goobta oo tallaabo ay ka qaadaan haddii ay taa ka qaadi waayaan dagaalkuna istaagmay waana sii soconaysa eeduna dawladda ka hadhmayso